بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام وأنا محاضر عبد الله وما دال كان يكون سو قد بنتونا عشر كاني تطبيقات كويك بوك أونلاين. عشر كاني تطبيقات وكهل دونا recording initial investment سيدا لو ديوان قلنا يا مالقلين تأوه رئيسة لغو سميو ganacsiga. سيدا عادي waxaan ognahay ganacsiga marka la rabo in la bilaabo wuxuu u baahan yahay maalgelin, wuxuu u baahan yahay lacag oo ah lacagtii lagu bilaabi lahaa ganacsiga. lacag la'aan wax ma soconayaan saan wada ognahay. marka maalgelinta sidee loo diiwaan gelinayaa? laba mid ayaa suuragal ah. waa suurtagal in maalgelinta uu sameynayo hal qof oo ganacsiga hal qof iska leeyahay. waxaa kaloo suurtagal ah in ganacsigu iska leeyihiin dhowr qofood ee maalgelintuna sameynayaan dhowr qofood. sidee loo diiwaan gelinayaa marka? haddii hal qof uu leeyahay dhib ma laha, waxaad sameyn kartaa hal account, lacagta dhan asaa iska wada leh. laakiin haddii ganacsigu ay maalgashanayaan dhowr qofood, waxaad ku khasban tahay qof walba inaad u sameyso account gaar ah, accountkaasoo ay ku xusan tahay lacagta uu leeyahay. haddaba si aan u sameyno waxaan soo kicin doonaa Google Chrome. markaan soo kiciyo Google Chrome waxaa halkan u diyaarsan oo ii kacsan waa kambanigayga. inta aan idin tusin sida loo diiwaan geliyo maalgelinta, waxaan rabaa inaan idin tuso maalgelinta reportka ay saameynayso. reportka ay saameynayso maalgelinta waa balance sheet. balance sheetka ayaa marka hore soo fiirsanaynaa, hadhowna waan fiirinaynaa marka aan diiwaan gelino waxa iska bedela. si aan balance sheetka u tago waxaan imaan doonaa halkaan ay ku qoran tahay reports, ayaan click ku siinayaa. click markaan ku siiyo wuxuu i keeni doonaa halkaan. halkaan waxaa yaalo waa balance sheet, ama halkaan searching ayaan ka raadin karaa oo waxaan ku qori karaa balance sheet. waa kana ujeedaa balance sheet. click ayaa ku siinaysaa. halkaan close kale. halkaan ujeedaa waa Mohan Electronics Company, waa balance sheet soma. halkaan hoose hadaad fiiriso, this report does not contain any data. reportkaani wax xog ah kuma jirto weeyaan. kale halkaan waxaa ujeedaan waa report period, waa xilliga reportka. halkaan waxaa noo dooran this year to date, sanadkan bilowgiisa ilaa iyo maanta. halkaan ay ka arki kartaa January 1st 2019 ilaa March 22 2019. intaas ayay dooran. haddaan rabo halkan ayaan ka bedeli karaa. waxaan dooran karaa today, waxaan dooran karaa this week, waa isbuucan, this week to date, isbuucan ilaa iyo maanta, this month, bishan. halkaan ayaa ka dooranaysaa. marka haddaad rabtona halkaan aad ka bedeli kartaa. maalin heblaayo iga bilaab ilaa iyo maalin heblaayo aad dhigi kartaa. waan sharixi doonaa. hadda kuma dheeraanayo. waxaan ujeednaa in balance sheetkeen wax xog ah aysan ku jirin. marka aan maalgelintan diiwaan gelino waan arki doonaa siday isku bedesho. waxaan imaan doonaa halkaan dashboardka aan kusoo laabto. si aan u diiwaan geliyo waxaan imaan doonaa meesha ay ku taalo plus sign, calaamada pluska ayay u egtahay. halkaan ayaad click siinaysaa. markaad siiso waxaad imaanaysaa journal entry, aad click ku siinaysaa. marka aad click ku siiso waxa uu ku keeni doonaa halkaan ay ku qoran tahay journal entry. halkaan ugu horeyso waa journal date oo ah taariikhda journaalka. waxaad dooranaysaa taariikhda aad diiwaangelinta sameynayso. haddii sideeda kugu saxan tahay sideeda ku dhaafanaysaa. haddaa rabtidna halkaan ayaad ka bedeleysaa. ani sideedaan ku dhaafanaya. sidoo kale journal number waa numberka journaalka, waa journaalkii ugu horeeyey, waa diiwaangelintii ugu horeysay aan sameynayo oo aan halkaan ka sameynayo. waxa ugu horeeya waxaan imaan doonaa halkaan ay ku qoran tahay account ayaan ku dhufanaya. waxaan gelinayaa accountka aan lacagta dhiganayo. lacagteeda waxaan dhiganayaa tusaale ahaan account waxay sameysan oo ah bank oo ah Salaama Bank ayaan lacagtaani
dhiganayaa oo kale tusaalahaan soo salaam bank. sidoo kale hadduusan bankiga kuu samaysnayn adoo meeshaan joogo ayaad samaysan kartaa. soo horaan kuu sheegay QuickBook Online wuxuu awood kuu siinayaa meel alla meesha aad joogto inaad ka samayso account-ka. tusaale ahaan waxaan rabaa oo kale dahabshiil bank inaan dhigto lacagta oo kale. so waan samaysanayaa marka halkaan ayaan ku qorayaa dahabshiil bank. so waxaan taabanayaa tab. so tab markaan taabto automatically halkaan ayuu ku keenayaa marka waa account. waxaa ugu horeeya waa account type, account-ka noocii uu yahay waa cash and cash equivalent, siis ayaad ku dhaafaysaa. detail type-kuna waa bank. sidoo kale dahabshiil bank waxba kama bedeleysid, siis ayaad ku dhaafaysaa. waxaad idintaa save and close. soo jeedaa dahabshiil bank waa uu ku sameysay. so lacagta waxaa la dhigay dahabshiil bank. so marka lacagta la dhigay waxaan gelin doonaa debitka sooma waa 10,000. okay so halkaan ay ku qoran tahay description waxaan gelin doonaa faahfaahinta. waxaan dhihi doonaa initial business investment ama maalgelintii ugu horeysay ee ganacsiga. okay waxaan imaan doonaa halkan waxaan ku qori doonaa account-nada aan credit garaynayno ama account-nada ownerska ay iska leeyihiin. so ganacsiga hadduu iska leeyahay hal qof way saalan tahay, kaliya waxaad sameynaysaa hal account oo ah owners equity ama capital ayaad sameynaysaa. tusaale ahaan oo kale inaad qortid capital oo aadaadid hadduu kuu samaysnayn aadaadid. so halkaan ayuu ku keenayaa account type-ka aad ka dhigtid owners equity. so detail type-ka ayuu ku weydiin doonaa isla owners equity aad ka dhigaysaa. then waxaa leedahay save and close. soo ujeedaa then wax kale ma sameynaysid. so total debitkaaga waa 10,000, creditkaagana waa 10,000. sidaas aad ku save garaynaysaa haddii ganacsi uu iska leeyahay hal qof. laakiin haddii ganacsi uu iska leeyahay hal qof waxaa laga rabaa qof walba account gaar ah inaad u sameyso. account-kaasna ay ku xusan tahay lacagta uu meeshaas ku maalgashtay. tusaale ahaan qofka ugu horeeyo aan soo qaato waa khaliif capital waa uu sameysan yahay. so khaliif capital lacagta uu dhigtay waa 5,000. okay halkaan ayaan kusoo laabanayaa. qofka labaad ayaan sheegayaa. qofka labaad waa Anwar capital. Anwar capital ma yaqaana marka waxaa leedahay add Anwar capital hadda ku dar. soo horaa idin kugu soo sheegay QuickBook Online meel alla meesha aad joogto aad account ka samayn kartaa. soo ujeedaan sooma meesha account-ka aan ka samayn jirnay ayuuna keenay. oo okay so halka ugu horeeyo waxaa ku qoran account type. so account type waxaan ka dooranayaa owners equity. so detail type-ka ayuu weydiinayaa waxaan ka dooran doonaa partners equity. then wax kale kama bedelayo waxaan dhihi doonaa save and close. so Anwar 5,000 ma laha waxa uu leeyahay 3,000. so halkaan ayaa imaanayaa waxaa jira qof kale oo saddexaad sababtoo ah halkaan fiiri debitkeena waa 10,000 guud ahaan, creditkeena waa 8,000. so sidaan naa ku save garays marnaba kaama yeeli doono. so waxaa rabaa total debitkaaga total creditkaa inay isla faacyihiin. qof saddexaad ayaa jira marka. qofka saddexaad waxa weeyaan waa galad capital. so galad capital waa uu sameysan yahay. so waa 2,000. so hadda fiiri marka debitku waa 10,000, creditkan waa 10,000. okay waxaan imaanayaa marka halkaan ay ku qoran tahay save and new ama halkaan geeska aad furi kartaa. waxaa dhigi kartaa save and close. so saddexdaa maxay tahay? kan wuu kuu save garaynayaa, kan wuu ku qorayaan save waa uu kuu save garaynayaa, laakiin meeshaan kaama dhaqaajinayo meesha ayaad joogaysaa. save and new waxay tahay ii save garay mid cusubna ii fur. kuwaan iga baabi meesheenu eberna iga dhig macnaha si aan mid kale ugu save garaysto.
save and close waxay tahay ii save garee igana xir. So waxaan dhihi doonaa marka save and close. So ujeedaa soma waa la save gareeyay. Okay, waxaan imaan doonaa reports aan click ku siinayaa. waxaan imaan doonaa halkay ku qoran tahay balance sheet. Okay, balance sheet kan wayna kana Mohan Electronics Company waa balance sheet soma. So taariikhda maanta Maars 22 2019 weeyaan. Okay, waxa ugu horeeyo so balance sheet koon garanayno waxa ugu horeeyay asset soma. Asset waxa ku xigo current asset. So current asset oo dhan waxa nooga samaysan hal account ah Dahabshiil Bank waxaana ku jirta amount gaarayso 10,000. So current asset kale ma jiro marka. Total current asset isla lacagta ayuu soo celiyay waa 10,000 iyadan. So total asset asna wuxuu noqon doonaa isla 10,000 waayo current asset kaliya ayaa jira. So hadii waxyaabo kale ay jiri lahaayeen wuu soo dardari lahaa total asset halkan ayuu keeni lahaa. Okay, wasaan socdo liabilities and shareholders equity ayaa ku xigo. So liability waxa la yiraahdo ma jiro. So wax deyn ah ma jiro, ganacsigan wuu cusub yahay hadda ayaan maalgelintii sameynay. Okay, shareholders equity waa kan asigu soo qaadanaya marka maadaama liability uu sii jirin. Haddii liability uu jiri lahaa qaybta kore liability ayuu ku soo xisi lahaa kadib shareholders equity ayaan imaan lahayn. Okay, shareholders equity waxa ugu horeeyo net income. So net income-ka wuxuu ku soo aruurin doonaa hadhow marka aan sameyno waxyaabo inaan iibino iyo waxyaabaas aan bilaawno waxaan heli doonaa faa'iido. So faa'iidada la helay halkaan ayuu keeni doonaa. Okay, soo kale waxa ku xigo halkaan fiiri Anwar capital waa 3,000, Garad capital waa 2,000, Khalif capital waa 5,000. So halkaan waxa ku xigo return earnings. So return earnings ku waa akoonada lagu aruurin doono faa'iidada. So net income-ka sanadka marka uu dhamaado waa uu xirmi doonaa soma faa'iidada wuxuu kusoo wareegi doontaa account-kan oo return earnings. So account-kan account xirmaya ma aha marka. Then total shareholders equity waa 10,000. So kale total liability and equity waa 10,000. So mar walba waxaa rabaa total asset-kaagu inuu la fac yahay total liability and equity. So marka isla facayin kadib waxaa la dhihi karaa xisaabtaadu waa balanced wayna ku saxan tahay. So mar walba aad dhacdo diiwaangelinayso dhacdada aad diiwaangelisay meesha ay saameynayso waa inaad soo fiirisaa. So inta badanna laba meel ayaa la iska hubiyaa waa tan koowaad balance sheet-ka iyo profit and loss statement ama income statement saa u taqaanidba. So cashirkeen maanta intaas ayuu noogu egyahay. waxaan idinka codsanayaa in cashirkaani aad sheergareysaan si dadka walaalihiina ay jecel inay QuickBook online bartaan si ay ugu faa'iidaystaan. waxaan kaloo idinka codsanayaa in channelkaani aad subscribe dhaadaan videogaana aad like iyo share dhaadaan. aad baad u mahadsantihiin.